madaxweyne qaran hadduu hawu soo maray miyuu yahay guddiga fulinta ku jira imika warqad baa loo qoraya waa leeraya hadduu sharciga dalka meel kaga dhaco sharciga xisbiga meel kaga dhaco waxaan garanayaa wasaaradda maaliyaddan wada ahaan jiray kastamkaa dhexey isagoo jooga baa 3 milyan laana lagu soo xidhaa oo jeelka lagu geeyey marka maaha nin qiim le maaha waxa weeyaan waa nin aad u liito weeyaan waa ninkaa iska odhanaya guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii iyo wixiiba anigaa ka soo hadhay oo anaa meesha joogo anaa cid muxuu isugu yeedhi karaa xaguu ka keenay tamarta iyo awoodda uu isagu isugu yeedhi garabkiinan uu hogaaminayo guddoomiye kaahin soo la isma odhan karo xukuumadda dibadda geliseen markaad aragteen awooddiina dadkanna waa dad uu isagu marba kalarka soo qabanayo mid uu lacag siiyo iyo mid uu hanjababa kan waxaan malanaya malaa waaba uu hanjabay bada isaga lacag muusiin baan malanaya uu hanjabay waayo nin kurbanayaba waa marka waxaad moodaa dadka imika indha dilaacsaday inay iska odhanayaan xisbiga miyaan beeli soo saarin miyaan taageerayaal gaari soo saarin xisbigu dee maanta ma dhalan hore u jiri jiray inta gacanta la soo qabtay baa muusoo aan tacab ku lahayn inta saa loo soo dhex taagay laga darto war xisbigu guddoomiye uu leeyahay maxamed kaahin baa ka guddoomiyaa guriga muuse biixin xisbiga lagama xukumo dee muuse biixi gurigiisu ka soo hadlaya waa caddahay waa nin loo yeedhay oo lagu yidhi hadal weeyaan dib maxamed kaahin iyo samaale iyo maxamed cabdidheere iyo codka ay waayeen adigu xaggaad ka keentay aan horta leeyahay marka hore ninkaa xisbigu ma maanta ay soo saartay beesha muuse biixi mise weligii buu jiri jiray xisbiga miyana hayn in la dhegaysto taageerayaasha xisbiga kulmiyadda labada ay soo jeedinayaan ku salaysan in hoggaanka xisbiga la bedelo haddii ay soo farageliso xisbiga kulmiye waxa dhacaya amni darra buu leeyahay amni darrada isagu uu samayn karaa maxay tahay bismillahi raxmaani raxiim kulanti waxaan u wanaagsan dawdan halkan naga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga sahan waxaana wariyay xidig sidaad la socotaan khilaaf cakiran oo xooggan ayaa ka dhex taagan xisbiga mucaaradka ee kulmiye haatan waxaa dhinacayga fadhiya